السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركا waxaad ka daawan doontiin Hormar TV. Dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada Raasa ayaa maanta dagaal ka dhacay. Dagaalkaas oo ku dhex maray ciidanka iyo shicibka. Ciidankaas oo degnaa magaalada Raaso. isla markaana ciidanka lagu weeraray xaradoodii ama goobteedii ay degnaayeen. dad badan ay ku nafwaayeen halkay ciidankana ku dhaawacmeen. dowladda Somaliland gobolka Awdal gaar ahaan Buurama wasaaradda maaliyadda ayaa maanta qarax laga fuliyay ilaa haddana la ogeyn cidii qaraxa ka dambeysay. walow ayaga dhexdooda ay tahay cidii qarax geystay sidii dad xog ogaalayaal ay sheegayaan. warar la mid ah ayaan idiin soo tabin doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Hormar TV qarannimo doon. Assalaamu calaykum.